magaalada Gaarisa Ismaaciil Maxamed Garaad ku soo dhawow xafladan quruxda badan oo lagu talagalay caawa dadka meeshan jooga waa waxgaradkii reer Minnesota gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha St. Paul iyo Minneapolis anigoo ku hadlaya magaca dadka sharafta leh ee halkan fadhiya waxaan ku leeyahay Ismaaciilow soo dhawow annaga waxaad noo tahay mudane qaali ah maadaama ay dad badan ay naga joogaan oo Gaarisa ay naga joogaan waxay noo tahay special privilege marka ku soo dhawow Minnesota waxaan jeclaan lahaa hadda inaan u baaqo oday qaali ah oo nabadoona ugaas Maxamuud Cunshur ku soo dhawow microphone waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee xafladan maanta isugu yimid aan ku soo dhaweynayno Ismaaciil Maxamed Garaad haddaynu nahay reer Minnesota waxaan isleeyahay maayirka Gaaris inooga yimid wuu inaga mudan yahay inaynu soo dhaweyno inteena badan wadadaas aynu soo maray ama reer Gaaris bayban u nahay ilaa iyo Nairobi maxaa jira wadadaas boondadii inkaarayde waxaa ku taala muxuu ahaa aad wada garanaysaan qaabkaad ku soo gudubteen aad baynu Gaaris markaan ku soo hoyano qolyaheena dhinaca kale ka yimid habeenkaynu Gaaris ku soo hoyano u fakari jireen oo oran jiray talow boondada maxaa kaala kulmi doona waxay baahilaan sharci inaga lahaa marka waxay ila tahay qofkii Soomaali ah ee aad aragto ayaa saaxiibka gobolka Gaaris kolka waa gobol Soomaaliyeed oo gurigeennii labaad ah oo Soomaaliyeed dadka ka yimid markii Soomaaliya ay ka soo baxeen gurigooda labaad ay ku nasteen buu ahaa Gaaris inta Nairobi la soo gaaray Nairobi waa magaalo madaxdii oo dad kale ayaa mas'uuliyadeeda lahaa laakiin reer Gaaris waxaan leeyahay waa gurigeennii labaad marka maadaama uu gurigaagii labaad muxuu ahaa ruux kaaga yimid haddii uu ku yimaado inuu sooriyo dheeraada kugu leeyahay baad moodaa marka sidaa daraadeed maayirka Gaaris waxaan leeyahay annagu haddaanu nahay dadkii Soomaaliyeed ee joogay Minnesota qalbi furan iyo kalgacal laab xambaarsan baanu kugu soo dhawaanaynaa waxaanu ku leenahay soo dhawow waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda aad ka timid ee Kenya waxaan u mahadnaqaynaa gobolka Soomaalida joogta waxaanu u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta aad adigu ka mid tahay waxaanu u mahadnaqaynaa adiga oo maayirkii Gaaris hadda ah oo aanu ku leenahay kalgacal baanu kugu soo dhaweynaynaa intaa kadib annagu haddaanu nahay Soomaalida Minnesota waxaanu diyaar u nahay wax allaale wixii horumara ee uu u baahan yahay muxuu ahaa dadkii naga dambeeyay Afrika meel kastaba ha ka yimaadeen waxaanu gaar ahaan idinka idin siinaa tixgelin gaar waxaad moodaa culays gaar ah inaanu siino reer Kenya oo aanan Soomaalidii dadka badankii ay ka yimaadeen siinin iyo meelaha kale ee laga yimidba waxaa dawladda aad ka timid naga gaarsiinaysaa sida aanu aaminsanahay ee kalsoonida ah ee aanu idin hayno inay iyaduna xambaarsato oo ay ogaato sidaasaanu muxuu ahaa yaanu dawladdii fariin idinku faraynaa waxaa jirta in ay jiraan ururo nabadiid oo adduunka oo dhan ka jira oo adduunka oo dhan wada dhibahaya ururadaas nabadiidka ah adduunka oo dhan dhibaya waanu ka xunnahay annaga arrimaha ay wadaan waana ka soo horjeednaa dawladdu waxaad naga gaarsiinaysaan dadkaasu inaynan ahayn dad jinsiyad gaar ah leh dad qoomiyad gaar ah inaynan ahayn ee ay yihiin dad adduunka oo dhan dhib ku haya fikir xun qaatay waxaana jecel lahay
sidii adduunku uu isku meel uga soo jeedsan lahaa oo deganaanshaha iyo nabadda gobolku uu ku soo noqon lahaa dadkaana gobolka looga nadiifin lahaa deegaamadiisa oo xuduudda Soomaaliya iyo u dhaxaysa Kenya ay ammaan u noqon lahayd midaasaanu soo dhaweynaynaa waxaanu taageersanahay hawlgalka dawladda Kenya ay ka samaysay gobolada Jubbooyinka iyo Gado waxaanu soo dhaweynaynaa oo si qalbi furan ku taageersanahay qabashada magaalada Kismaayo ee laga qabtay dadkaas xunka ah ee sida xun u fakarayay ajnabiga ah ee aan la dhihi karin waa dad deegaanka sal ku leh arrintaas baanu dawladda Kenya gaar ahaan uga mahadnaqaynaa waxaa kaloonu garab taaganahay oonu iyagana taageeraynaa ciidamadii dawladda Kenya oo ka tirsan AMISOM garab siinayay kuwii militariga ahaa ee deegaanka dadka u dhashay ahaa ee laga qoray Nairobi iyo kuwa deegaanka u dhashay ee iyaguna dhalinyaradii deegaanka weligoodba joogtay ahaa ee Ras Kamboni iyagana waxaanu u diraynaa tahaniyad iyo salaan qalbi furan ah waxaan mar labaad aan rabaa inaan u baaqo wakiilka boqorka Daarood Cabdullaahi Khayr inuu ku soo dhawaado Cabdullaahi waa nin odaya weeye waa nin hogaamiye dhaqameed ah waa nin qaali ah marka si fiican ha loo soo dhaweeyo Cabdullaahi qolooyinka caawa rag iyo dumarba odayaal leh oday dhaqameed leh aqoonyahan leh gabdha leh maxaan ku idhahdaa war dhalinyaro leh oo caawa ka soo qayb gashay xafladan waxaan leeyahay haddii ajarakumullah ilaahay ajar idinka siiyo imaantinka aad timaadeen khayr baynu isugu nimi soo dhaweyn baynu isugu nimi waxaan leeyahay ilaahu fadligaaga rabbiyow intayada tan oo dhan iyo inta raallika aan ogeyn inay timaado la rabay oo aan iman ilaahu dembigeena dhaaf dembigeena allah dhaafo ilaahay keen isku cafiyaan oranaya rabbiyow kaaye isku cafi walaalayaal waxaan leeyahay anigu hadal badan uma iman waxaan u malaynayaa adeer wuxuu yidhi Hadaaya Cashuur wuxuu yidhi anigu codkaygu waa dheeryahay aniga kaygu waa gaaban yahay xabeen baan leeyahay marka hadduu codkoodu ka gaabto oo aan soo gaarsiin waay raalli waad iga aanisaa waayo tabartaydii baa inta noqotay marka Cashuur waa iga cod dheeryahay aniga Cashuur hal mid baanu ka siranaa Cashuur labadii intaanu garoon istaagnay halkaas oo ku yaal meesha u dhaxaysa Chicago iyo rag kaleetoo badi waxaanu ahay nimankii cambaaraynayay nimankii adduunka qarribay oo dadka gowracay oo balaayada dhigay oo Kismaayo ku duulay oo rafaadka ku dhigay ummadda kuwaasaanu wada cambaaraynay haddee baaqaan haddee anigu ma garanayo waagaas qolooyin baa waxay ku yidhahdeen odayga garka guduudan iyo adiga meeshaa gashaan waayo bal meeshaa gashaan baa oo maxaa layga rabaa haddee ra'yi baa la baxay anigu nimankaas ma jecli yaa ilaahayna ummadda ha ka qabtaanu leenahay waxaan leeyahay waa iska kafteen intaasu laakiin waa kaftaan dhable laakiin waxaan leeyahay dawladaha adduunka Kenya iyo dawladdeena tan Maraykanka midda ma garanaysaa Yurub Africa qolo kasta oo ka qayb qaadatay hawshii ka dhacday Kismaayo ama Jubbaland waxaan leeyahay mahad gaar ah baan u celinayaa mahad gaar ah baan u celinayaa sababta oo ah dhibaato badan oo na haysatay baa naga fuqday dhibaato badan oo na haysay ayaa naga fuqday waxaanu u gudubnay qaab nabadeed baanu doonaynaa qaab nabadeed waxaanu doonaynaa qaab tacliineed waxaanu doonaynaa qaab maamul waxaanu doonaynaa xorriyo iyo dowladnimo waxaanu doonaynaa horumar iyo dhaqaale waxaanu doonaynaa dadka dhulkaa ku dhaqan
oo silcay oo baabaayo hoogay oo dhibaatada ku dhacday ilaahay inuu dhibaatada ka saaray oo ay ka baxeen mahad gaara waxaan u celinayaa intii ka qayb qaadatay ama ha yar ama ha fogaado ama soomaaliba ha noqdeen intii ka qayb qaadatay mahad gaara ayaan u celinaynaa maaray markaan kuu soo noqdo ama waxaan leeyahay duqa magaalada Gaarisa waxaan leeyahay nin yar baa tahay dhalin yar mustaqbal baa hortaada yaal annagu waqtigay waa qaadanay wax kasta aan kusoo qaadano mustaqbal baa yaal hortaada maanta waxaad tahay duqii magaaladaa tahay Gaarisa Gaarisa dad gooniyi ma leh Soomaali baa leh Kenya ayay ka tirsan dowladda Kenya waaye laakiin ma og tahay inta kuu timi oo hadda agtaada ku nool qaxooti ah waxaan leeyahay waa Soomaali iyo Kenya la isku daray waaye way ku nool yihiinna maamulkeedii iyo waxqabadkeedii iyo dhibaatadeedii iyo adigoo dhalinyaraha bay ku saaran tahay wixii la soo mari lahaa la soo mar waxa ka dambeeya waxaan u muuqanaa meel ifaysa iyo iftiin iyo nolol waxaa la oran jiray roobku markuu halkaa ka dao halkaas waa hilaacaysa maxaa ka hilaa cagaar Soomaali waxaan u jecelnahay iyo Kenya iyo Ethiopia iyo inta dariska iyo Djibouti waxaan u jecelnahay sidaas ilaahay iyaga ay nabad uga dhigay way u degan yihiin annagana dhulkayaga ilaahay nabad inooga dhigo haddana ka mid ah staffka safaaradda New York United Nations Mission in New York marka asagaa soo dhaweynaya welcome honorable Omar Jamal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أن نوصل قلي وحن ربي أن كان City Council غير الشفت أريد أنه مثلا إن هرتا أن مير كان سيدي لو وصل دوي أن وصل دوي مقالة Twin Cities كا فنتي وحن كلون ربي أن رأسه إيمان شهيسة in ay ku saabsan tahay Gaarisa iyo dadka degan qaxooti badan runta ay ku soo jabeen Soomaaliya ugu yimaadeen xataa sida ugu maqaalaa in xataa qarax loo geystay mararka qaarkood dib annaga dhibkeeni uu fatahay marka inaan sidii gacan lagu siin lahaa magaalada uu ka yimid iyo dadka uu mathalayo sidii mayorka hiil iyo hooba wixii loo geen lahaa in la gaarsiiyo waxaan kaloon rabaa oo kale inaan taabto arrin kale oo ah Amazon way mahadsan yihiin hawsha ay ka qabteen Xamar hawsha ay ka qabteen Baydhabo hawsha ay ka qabteen Beledweyne hawsha ay ka qabteen Kismaayo arrinta Kismaayo dadka degan bay u taalaa waddanka dawlad ayuu leeyahay dawlad cusub ayaa dhalatay inaan marka wixii la isku qasinin dad ayaa degan dawlad federaal ayaa dhalatay ma u maleynayo inay dawladda dad meel degan arrimahooda ay fara gashanayso ilaa ay caawinto mooye marka annaga oo Soomaali ah Kismaayo Xamar Baydhabo Garoowe Gaalkacyo Hargeysa waxay hoos tagaan maamulka federaaliga oo Xamar ka dhisan bay hoos tagaan marka aan si wadajir ah aan wixii u wajahno Mr. Mayor, I welcome you to our town. I'm told that Mayor Garat is the youngest mayor in all of Kenya. I'm glad to see that both cultures embrace a culture of electing their most talented.
I did travel to Dadaab refugee camp a year and a half ago with a sister city program from the city of Minneapolis and Eldoret. But after traveling so far, I needed to make the trip a little further to go to Dadaab. The government of Kenya has received the people from Somalia in many camps near Dadaab, and I visited Camp Ifo, and I saw the suffering, I saw the shortage of food, I saw the lack of shelter, and when I came back, I told that story to other elected officials here in Minnesota. And I believe deep in my heart, if every member of Congress in the United States could see Dadaab, it would not exist. The need to end human suffering, the need to provide safety for people from famine and war is present in many corners of the globe, but nowhere more present than in Dadaab. And so I thank the Kenyan people for providing a place of refuge for so many, but we know there is so much more to do. Today in Dadaab, there are people whose grandparents escaped the war. And so the generation after generation will still need to continue the fight for freedom and for quality of life. And I reflect back on my family. It was my great-grandfather who left a famine to come to the United States. The Irish famine left millions of people dead. But when they came to the United States, they received shelter, and they also received intolerance. And it was through many decades that finally Catholics and Irish were able to be received as equal. And this week we saw a sight I never thought possible. 2 Irish Catholic men debating each other for vice presidency of the United States. So the journey has been far, but the journey will continue with our children, our grandchildren, and our great-grandchildren. And perhaps someday we will see 2 people of Somali descent debating to become president of the United States. I'd like to welcome the mayor of Garissa to the City Hall of Minneapolis this week, and to meet our mayor and our city council, and to hear about our Sister City Exchange program with Eldoret, and the work that we did to improve fire safety with the gift of an ambulance and the gift of a fire engine. Because the most basic safety, the most basic need that any government supplies is to care for its own people. And that is what we all have in common. Thank you so much. haddii aan Soomaalida Kenya degan maanta aanay deganaan lahayn meeshaas Jillaan waxaan u maaynayaa walaa qaxooti walaa cid kale cidina ma deganaateen meesha runtii dadka Soomaaliyeed ee degan Kenya iyo madaxdooda mid baarlamaanka ka tirsan iyo mid maayana iyo mid duq magaalaha iyo mid xildhibaana runtii dad taariikhda baal dahab ka galay weeye dad aan anigu abaal badan u hayana weeye waan codsanayaa dadka xafladaha abaabulaa inay naga soo qayb galiyaan ta Soomaalida horaan u yiri horta inaga wuxuu yiri ninkii inaga teena horaan uga hadlo wataan ku yiri haddii aad tashan weydo soo lagu talin maayo waxaan maayarka farayaa waxa Soomaaliya haysto waad ogtahay waxa dhacayna waad ogtihiin annaga waxa soo dhan waxa wakiil nooga aanu ku aaminsanahay dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ee Kenya degan oo aan runtii aad iyo aad u taageerayno talaabooyinka ay qaadayaan anigu kolba shakhsi baan ahay qof ma taageero waligay groupna ma taageero waagii maxkamadu dagaalamayeen waxaan ahaa dadkii maxkamadaha difaacaya Itoobiya ka soo horjeeday
isla markii iyagu meesha qabsadana dagaalka la isku bilaabay annagu maanaan kala aqoonin midka shabaabka iyo midka muxaafidka midna waxaa ku jirtay maansadaydii hadday xabashi duuduubatay oo dibadda loo saaray waxa xamar duqayn loogu wadayay iga degi weyday dilka shacab nin door iyo wax kala dumarka layntooda meeshii daliil looga helay iga degi weyday dadkii aan dooranay dowladdii waa tii ka bixi weyday in la isqabsado shariifka halka markuu noogu yimid madaxweynihii hore inkastaan ku ammaanay sidii sharafta badnayd uu xilka u wareejay haddana runtii aad baan u dhaliilay anigu isaga gooni wax gooniya kuma jeclayn cabdullaahi yuusuf oo ka horeyna mucaarad gaara kuma ahayn waxaan doonaynay soomaalina soo noqoto dad soomaali soo jeedi kara waxaa maansadeedii dambe ku jirtay raxmad eebe kama quusan iyo roone noo kacae hala rido shariif anigii raacsanaan jiray nin kasta haddii uu aan taageerno ka soo bixi waayo meeshiisii maaha qofkan iska caabudo aad meesha kuu taagnaado waxaan rabaa duqa magaaladu nahay maqla inaan qisa yar oo suugaanada idinka sheekeeyo bini aadmigu markuu guuldarraysto ee dhibaatadu dhacdo dadku isku mid ma noqdo qofna waa adkaystaa qofna wuxuu iswarsaa ku noolaan karta naftaada ku badbaadisaa qofna wuxuu isku dayaa bal negotiation iyo si dhib yar looga baxo meesha tan waxaa la yidhi 57 ayaa magaalada hargeysa la yidhaha waxaa yimi baa la yidhi wasiirka mustacmaraadka ingiriiska dadkii baa loo yeedhay war soo baxo kale soo dhaweeya 3 nin oo suugaanleey ah oo saddex gabi jireen ayaa la wacay 3 ninba mowqif buu istaagay waxaa ka mid ahaa ninka wada taqaaneen ee la odhan jiray barkad cas wuxuu ahaa ninkii anigu meesha tegi maayo ninkan waan nagama dhaxayso maansadiisi waxaa ka mid ahayd ninkii aabbahay indhaa tiray ninkii ifka igu adoonsaday ninkii anigana iibsaday haddaan arkayaan aarsan karayn haddaanan aadan ulunka jaraynin ninka araggiisa urkaan ka nabcaan oo albaabka ii xidha waxaa ku xigay nin malaha isagoo maslaxaddiisa u arkay inuu ninka dabkii baxaya dab lagu qabsadaa wuxuu yidhi sidii naag dhali weyday oo dhowaanaya bay waxsiiyo dhabta wiil yar ku haysa ingiriis dhaladkiiyo waanu kuu dhega bellaxkee kaa dhunkadaa nin oday ayay tala ku caddaatay imaristeria la dhihi jiray wuxuu go'aansaday inuusan shir ka maqnaanin inuu meesha tago inuu garramo inuu ninkan ingiriiska gar u dhigto isagoo suwaan ku cabiraya meeshii buu tegey waxaa la sugaya inuu soo dhaweeyo sida ninkii hore hadda ka sheekaynayey wuxuu yidhi boqorow ingiriis in badan baan isarkaynu afkiisu baranayni uurkana waa iska raacnay il ninkii ku caddeeya ama eeba ku fiiqana annagaa u tegayno ogolayn xumihiisa jarmal baan isku eedno raggaygaa ku idlaaday jabaanna waa la ogaa raggaygaa ku idlaaday ardina laygama siin jabaanna waa la ogaa xaluftiiga gaadhay arligaanu lahayn xooggii aan la ag joognay iyo arligaanu lahayn amxaanu ku wareeji odayaashii horeeto axdiga la dhigteen ilooyoo ka tallaabsay dib u aamini mayno axdina loo xidhmi maayo albaabkaa xamar weyne ilaysaa ka baxaya indhahaygu jiraan abtirsiima ma guurtee rag ka oolaya miihine arrinkaa isu sheego ogeysi madaxdiina mowqif cad buu qaatay waxaan jeclaan lahaa xafladaha ay sameeyaan soomaalida Kenya waa xafladii labaad ee aan waxaan u leeyahay xafladii ugu horeysay waxay ahayd xafladii faanax macalin runtii aad boqolkiiba boqol Soomaali in badan baan la hadlayn waxba naga qaadan laaday waxaad iga gaarsiinaysaan oo Soomaali ka gaarsiinaysaan abaal aan badan aan go'ayn baan idin haynaa waxa Soomaali ka dhacaya ama adduunku faragelin ku hayana cid aan u arkayna damaanad nooga ah waa idinka cid kale aan aaminsanay ma jirto gaaristaan la deganaadeen wajeer baan la deganaadeen xaalufka iyo dhibaatada intaasoo milyan oo qaxooti ay geysatay waynu ognahay yaa ku adkaysan lahayn intaan Soomaali ahayn dadku maanta marxalad adag baan maraynaa waanu ka bixi doonaa ma inay noqotoba waa ku salaamaynaa waa ku soo dhawaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa in alla intii Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa talaabada iyo dariiqa haysan waa aydsanay waa intaasoo dawlad soo dhawaataan anagoo suna inuu isu soo sharaxo madaxweynaha Kenya nin Soomaaliya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan rabaa inaan u yeedho Faadimo Taani oo ay soo dhaweyso
wakiil ka mid ah aqalka Minnesota, Richard Cashin. Fatima will welcome to the representative to the podium. السلام عليكم. aad baan idin salaamayaa marka hore waad mahadsantihiin and I would like to welcome today Roger Cushin, who is running for a house in Brooklyn Park in Brooklyn Center area. Thank you, Roger, for your time and being here. I'm welcoming you to be a microphone. Well, first of all, let me say what a pleasure and privilege it is to be here with you folks this evening. And my congratulations and pleasure in meeting Ismail Muhammad Garat, the mayor of Garissa. Yes. Garissa. I'm still learning. You have to be patient with me. Okay. I want to take this opportunity to say that I think it's a real opportunity for us, anybody who lives or knows anybody in Brooklyn Center and portions of Brooklyn Park, to put somebody in office who has the same values that you folks have on so many issues. You know, my opponent for this office did not even want to give the voters a chance to state their opinion on how marriage should be honored in our society. And so I think it's a good idea that we have a chance in this election to express as voters how we want the institution of marriage to be honored. The other thing that I think is important is that immigrants have been coming to this country for more than 200 years. And they didn't come, as I know you folks didn't come, because we have a wonderful welfare program. They come because America offers opportunity. And the more burden that the government puts on our economy, the less opportunity folks are going to have in this economy or in our nation. So I would like to have an opportunity to stand up not only for our social institutions like marriage and the ability to have a good and clean election, but I am also want to give more opportunity to wonderful entrepreneurial people like you folks who come here for this opportunity. Great honor that I'm sitting here with my esteemed visitor and a personal friend is Worship Muhammad. Welcome very much to Minnesota. Without taking this for granted too, I think we also have an esteemed visitor in the house. Our future congressman is sitting up here with us too. You're welcome. But I think the most fundamental reason for me to be here is to go ahead and share the same sentiments that we share with the people of Somali. I know we've had the issue of Kismayu, we've had the issue of Isili, we've had the issue of coming into the diaspora and trying to probably not to be as an entity, but it is such an opportunity that we are making some major groundbreaking and trying to see how we can go ahead and consolidate ourselves here and also back home. But I think the main reason for calling this meeting, number one, was to go ahead and typically touch on the issue about our Bonamea here. I think we have a new constitution in Kenya, and it's about time that the new leaders that we're going to be electing back home, they need to be effective. So Mayor, we are sending you with a word here that it is about time that you guys will be giving you a report card. And whenever you happen to visit us back, we'll expect to see some results from what has happened with the new constitution in the new county. For KDDF that I'm talking about, our chairman is also here.
Bwana Idris Abdi, he's at the back there. Yeah, and this organization called the Kenya Diaspora Development Forum. Our fundamental issues will be to tackle issues about people from East Africa, but specifically from Kenya. And to me, when I talk of Kenya, I also think of Somali to be the same zone. I was brought up in Embakasi, which is pretty much a place called around Isili. So I might not be able to speak the language, but you can say anything and let it go. I'll hear what you're saying. Yeah, so our organization is typically going ahead and setting up platforms in town. And the main objective that we are looking forward to do is for any person who comes from Africa or from East Africa, to be precise, and they are looking for a way of settling in Minnesota, we'll go ahead and develop the capacity of being able to fund individuals to settle here for the first 90 days. ugaas cabdi hiire guhad soo dhawow السلام عليكم. سلام كدب محوها أمورها الله نو سهلو. أنو وحن هاي دات سوماليات كنا نور قربها وحوي قربها أن كنا نور هاي اسكو دين منهن اسكو دقل منهن اسكو دقر منهن اسكو عف منهن سو wadajir oo duuban oo community ah oo Soomaaliya inaan ku wada noolaano oo discipline iyo nidaam leh ayaa wanaagsan haddaan qurbaha joogno. midda kale Ismaaciil Maxamed Garaad nasiib wanaag waxa weeye waa nin Kenyaan ah Soomaalina ah maayarna ka magaalada Garissa waxa weeye oo caawa marti noo ah gacmo furan iyo niyad furan inaan ku soo dhaweyno haddaanu nahay diasporada mataqaana qurbaha joogta qaasatan Minneapolis iyo mataqaana Saint Paul waa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. mudanayaal marwooyin mar kale markaan ku celiyo xalfadan dadkii abaabulay isku kaana yeeray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. midda kale dadkii loo yeeray qurbaha joogay oo Minneapolis iyo Saint Paul ka mid ah oo Soomaalida ah oo ajiibay oo ka soo qayb galay oo soo camiray aad iyo aad bay iyagana u mahadsan yihiin. waxaa weeye ninkan martida noo ah Ismaaciil Maxamed Garaad wuxuu joogaa meel halbowle ah oo halis ah oo ah qaxootiga Soomaaliyeed meel ay ku badan yihiin oo calooshii qaxootiga ayuu mataqaana mas'uul ka yahay. dowladda Kenya waxaan ugu mahad celinaynaa qaxootigii faraha badnaa ee mataqaana ku soo jabay ee Soomaalida ahaa ay martigelisay nabadgelisay ayaanu mataqaana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa. mar kale waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda Kenya ciidamadeeda oo galay waddanka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya oo maanta ku sugan magaalo madaxdii Jubbaland ee Kismaayo ee ka xoreeyay cadowgii asal raac ahaa ee mataqaana asal raac ahaa ka xoreeyay ayaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa uguna mahad celinaynaa. Faaduma falyatafadal. aniga oo ku hadlaya qurbo joogta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Minnesota especially magaalooyinka Twin Cities-ka aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galay xafladan. ilaahay baa mahad iskale meeshaan isugu keenay. arin waxaa jirta xafladan ka horeysay oo mayorkii yiri waxaan rabaa inaan arko dad qurbo joog oo Soomaali ah oo ma aragtay ka tartama waddanka ay joogaan oo u tartama ma aragtay kuraasta
marka waxaan rabaa inaan u sheego Mayor Ismaaciil inay jiraan dad qurba jooga hore u tartamay haddana tartamaya laba wiil hore jirtay oo sanad u tartantay Maxamuud Nuur iyo Sadiiq Warfaa waxaa kaloo jira aniga oo ah Faadumo oo hadda u taagan State Senate District 13 gabadhii Soomaaliyeed ugu horeysay ee u raangareysa kursi ma aqaano kulay ma maqlin laakiin sidaan anigu kulay isu haysto laakiin waa laga yaabaa dad kale gabdho kale igu horeeyay inay jiraan marka I want to be a role model great leader gabdhaha u noqda leader ay soo faalo gareeyaan taa markii laga tago Ismaaciil aad ayaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladan aan deganahay walaalkeen waan ku faraxsanahay inaad noo timaadid waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa soo noqoshada dambe aad soo noqotid inaad noo timaadid adigii adoo macnaha kursiga aad raadinaysa haysta oo sanadka magaalada Gaarisa ah inaad nagu soo noqotid baan Ilaahay ka rajaynayaa sida looga bartayna magaaladan Minnesota especially Minneapolis dad badan oo yimaada oo maaragtay ka yimaada Kenya kuraas u cararaya runtii way helaan kuraasta ay maaragtay u cararayaan mar walba waxayna nagu soo noqdaan mar walba ayagoo kuraastii ay rabeen siidkii ay u cararayeen ku fadhiya marka adigana sidoo kale aan ku rajaynaynaa insha Allah waxaan halkan uga yeedhayaa Shaafi oo ah mas'uulka Somali Action Alliance Shaafi waa nin oday weeye bulshada waxyaabo badan buu u qabtaa marka walaalkeen Shaafi aan soo dhaweyno waa nin oday weeye marka mar walba u taagan danaha jaaliyadeena Shaafi hal la soo dhaweeyo بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدكين ويري هاي حفلة نفلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii doorasho iyo waxaan wadan dhisid iyo development armaan gallo codkeena xogaa tabarteena waa yartahay xoog badan aan isku yeelnaa insha Allah si dadku noo arkaan inaan dad awood leenahay marka hore Ilaahay baa mahad iska leh بعد الله وحان إلهي وقمهد علينا ربي إنا قرنسي إنا نسكوني مادنو إنا نو يستغنو أرين مهمة إنا رنتي ولالكي إسماعيل مدن إسماعيل ما يركي مغالة غارزة وانين آد الزعيمة وقت يرو كوبنا أنسبرنا نين آد أنا أقدر قواي رنتي بس رجلكي قبائنا حتى أقوتكو وحق إن شاء الله وحكا عوية وحدو يرهدو باهي لأي جرت حق اللي نغلبها هي رنتي لو كل يوم نغلبها هي labada kun iyo tobankii baan tegay Gaarisa anoo ay ugu dambeysay 1991kii labada kun iyo tobankii markaan tegay waxay ahayd magaalada ugu farxadda badan Soomaaliya kadib Soomaaliya oo nabada ay ugu dambeysay 90gii baan kasoo tegay qaxi ka hor magaalada labaad ee aan tegay 91kii waagaas xalku soo hadda ahaa ma aysan ahayn waayo systemically that time 1991 Kenya ma aysan ahayn say maanta tahay labada kun iyo tobankii markaan tegay waxay ahayd magaaladii ugu farxad badnayd Mareykan intaan ka baxay aan arko oo aad aan ugu farxay haday noqon lahay dadka iyo deegaanka labadaba dad aad u tago badan ehlu khair ah masaajidada 24 macnaha shanta waqti alxamdulillah aad boos ka helayaan dad soo daacdo ganacsi badan uu ka socdo inkastoo aan jeclaan lahaa dadka Nairobi dhaqaalaha badan gashtay inay Gaarisa gashan lahayn waayo Gaarisa waa magaalo ay Soomaaliya ay leedahay faa'iido weyn ummadda u noqon lahayd mustaqbalka aniga ahaan ehelkayga degan walaalahayga waa degan meel loogama soconay dheen adduunka intaan noo lahayn meeshan ku dhameysayna waayo dadkii xataa Mareykan waa diidanay imaadaan waxay ka jecleysteen Gaarisa inay ku noolaadaan sababtoo ah meel aan Soomaaliya ka duwanayn marka farxad aad waxa ka maqan kaliya wax kale maaha systemkan cusub new constitution-ka la qaatay ee Kenya qaadatay wuxuu noqon doonaa mid ka bedeli doona wax badan Gaarisa iyo deegaanada Soomaalida degan tahay gabi ahaan waayo resource-koodii inay dib loogu cesho deegaanka wuxuu anfacayaa deegaanka systemka waddankaas waa isbedel waxay qaateen constitution-ka Mareykanka mid la mid ah state system uu noqday senate iyo parliamentary iyo waxa la soo dooranaa house oo upper house iyo lower house labadaba leh wuxuu yeelan doonaa commissioner yeelanayaan sida county-yada iyo macnaha leadership waa ka weynaan doonaa sida mayornimada kelima way ka sii weynaan doontaa
waxaasoo dhanna waxay noqon doontaa insha allah mustaqbal fiican innagana inuu meesha keliya waaye qofka soomaaliga aan lagu dhibin ama qaxooti ha noqdo ama ha deganaado ama ha u dhasho uu u arko inay tahay magaaladu asaga leeyahay qaxootiyada dhaadhaab waa aragteen waa regionka uu ku yaallo kaamka ugu weyn ay soomaali degan tahay aynu ku badbaaday muddo 22 sano waad maqasheen waxaa ka mid ah maalqabeen milyaneer ah oo qaxootinimo ku yimid xarada dhaadhaab meesha xarooyinka qaxootiga asoo eber ah oo kaba xataa aan wada maantana milyaneer ah haddaysan system iyo nabad raggan walaalaheena ay ka dhaliyeen meesha aysan jiri lahayn ma dhacdeen oo dhaadhaabaa lagu culi lahaa dadka marka waxaan leeyahay walaalkeen macnaha Ismaaciil inaan garabkiisa istaagno wax waajibna saaran kulligeen way waxaan soo dhaweynayaa jaaliyadda Wamo oo u hadli doono Kamaal Dacas oo ah nin aqoon-yahan ah marka aan soo dhaweyno Kamaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan caawo mikrofoonka uu yargaabay markaa waxaan u maleynayaa gacanta ku qabsado waa la ii qaatay lugaha iga dheeraadeen raalli ahaada inta aanan insha Allah fariinteeda u gudbin aan ka wado jaaliyadda Jubbooyinka ee waqooyiga America waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka sheego meeyarka arrin aan ku arkay ama aan kula kulmay waa dhaweyta mar aan joogay Gaarisa abaartii faraha badnayd ee waa dhaweyta dadka Soomaaliyeed saameysay markii lagu jiray waqtigii waliba ay ugu xumayd bishii Ramadaanka hadda ina dhaafay tiisi kale ayaan anigu waxaan tagay Gaarisa hay'ad samafal oo Turki ah yaan waday oo meesha geeyay dhaadhaab u waday waxaan degnay hotel ku yaala meesha la yiraahdo magaalada Gaarisa hay'adihii caalamka ee gurmaday ee abaarta u gurmaday dhaadhaab u gurmaday oo dhanna meeshaas lagu ahayd waxaan arki jiray subax kasta meeyarka oo macaws qaba oo gawaaridii hay'adaha kala amba bixinaya sidii loo u leeyahay camal macnaha gurmadka abaaraha Gaarisa kaliya muusan ku koobnayn meeyarka subax walba shaqadii Gaarisa intuusan qabanin gurmadka dhaadhaab ku shaqada ku bilaabi jiray salaas wax markuu soo dego hotelkuna u imaan jiray hay'ado laga yaabo inay 50 hay'adood yihiin oo yuhuud ku jirto oo hindi ku jirto oo Chinese ku jiro oo wadanka nooc walba leh yuu ama bixin jiray siini jiray muxuu ahaa boolis waardiyo ilaa dadku ajnabi ku gaariga ka halaabo gaarigiisa shakhsi uu siini jiray hay'adaha ku bixin jiray marka taasaan anu goobjoog ahaa oo ku soo bartay oo runtii aad ugu jeclaaday maxaa yeelay waxaan arki jiray shaqada Gaarisa soon qabanin loo doortay oo tii qaxootiga dhaadhaab uu ku kala hayso halba marka insha Allah intaasaan jeclaaysa inaan idin la wadaago anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Wamo ee waqooyiga America meeyarka waan soo dhaweynaynaa Wamo dadka aan aqoonin ama ereygaas ama naanaysa dhulka loo yaqaan waxaan jeclaan inaan wax yar baro Wamo waxaa la yiraahdaa dhulka Soomaaliyeed ee u dhaxay webiga Jubba ilaa webiga Tanariif ee Gaarisa maro macnaha waa labadan gobol ee Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gado iyo gobolka NFD intaas Wamo la isku yiraahdaa waa magac dhaqameed weey dadka deegaanka u sii yaqaanaa marka meeyarka reewaamaan isla nahay lahjadna oo khaas oo la yiraahdo dubriyo daraada waan ku wada hadalnaa marka waan iska waxooga waan ka yar xigsanayna hadda la idmo shakhsi ahaan baan ugu mahadnaqayaa maxaa yeelay wuxuu meeyar u yahay oo magaalada Gaarisa degan waalidkay walaalahay iyo carruurtayda halkan ku dhalatay oo aan xagga u raray wuu mahadsan yahay aqoon-yahan Kamaal Dacas hadda waxaa la soo gaaray xafladda meesha ugu muhiimsan ayaa soo dhawaatay waxaa soo dhaweyn doono Aamina oo ku magac dheer Aaminay yaa soo dhaweyn doonto meeyarka biographigiisana iyada noo akhrin doonto marka inta ka horeysa oo aan ku wareejinin waxaan rabaa duqa magaalada Gaarisa Ismaaciil Maxamed Garaad waxaa halkan fadhiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku faraxsan inay ku arkaan oo ku faraxsan inay dhageystaan talooyinkaaga oo kugu soo dhaweynaya magaalada Gaarisa waa magaalo muhiim u ah ganacsiga qaxootiga
nabadgelyada samafalka waa magaalo isku xidha Soomaaliya iyo Kenya wax badan baa laga filayaa aniga shakhsiyan dadkii soo maray waan ahay Gaarisa xilligii 90gii marka dadka Gaarisa waa dad fiican waa dad soo dhaweyn leh waa magaalada kaliya maartay aad ku noolaan karto macnaha oo la wadiinaynin maartay waxba wax dhibaatana aad kala kulmaynin oo dareemayso Soomaalinimada waxaan mar labaad ku faraxsanahay inaad maanta aad nala joogto adigoo ah duqii magaalada oo waxyaabo badan wax ka qabtay xagga nabadgelyada xagga walaaleynta dadka magaalada muddadii yareed ee joogtayna aad ku talaabsatay horumar iyo maartay nabadgelyo iyo maamul suuban anigoona ku dheeraanaynin waxaan u mahadcelinayaa oon rabaa message-ka maadaama anigaan microphone-ka haysto inaad naga gaarsiiso dowladda Kenya soo dhaweynta ay mar walba u hayso dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in meeshaas Kismaayo oo iska magaalo wareer badan ahayd inaan maartay dhibaato dambe aysan dhicin ay maamulkaas ay gacanta ku hayaan dadkana maartay ay soo keenaan dowladda ku meel gaarka ee madaxweynaha cusub ee la doortay iyo baarlamaankiisana maartay ay kaalmeeyaan taas weeye waxaan soo dhaweynayaa aamin oo ku magac dheer aaminay inay noo akhriso taariikh nololeedkii duqa magaalada soo dhawow aamina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآمنة محمد كينان باليرادا وحان كو مقع دير آمنة تذكر هرقارس ويا قانان رمينيا بوليسنا أقوم بإيليان marka maanta waxaan inta iskugu imaanay mayorkeena mudane maxamed ismaaciil maxamed garaad inaan soo dhaweyno waxaan u mahad celinayaa ummadda isku imaatay reer Minneapolis reer diaspora-ga Minneapolis joogaan inaad ka soo qayb gashiin walaal hadaa maqleysiin hadaan codka dheereenayo bal i xasuusiya okay mudane maxamed ismaaciil maxamed garaad waa odayga magaalada Gaaris waayo oday baan leenahay laakiin waa nin dhalinyaro ah maxamed waxaan xasuustaa soo yaro iskuulka dhiganayo markaan iskuulka dhiganayni maayna ku fikirin wiil yaro dhalinyaro inuu magaaladeena madax u noqonayo waayo oday baan haysan jirno adeer dhahayna hadda maxamed waa wiil da'deeda oo la hadli karo oo maxamed aan dhahayo aad baan ugu faraxsanahay wiil dhalinyaro ah oo da'deeda oo la hadli karo inuu maanta magaaladeeda Gaarisa oo ku dhashay oo ku soo karo inuu madax ka ahay oo mudane maxamed qoriyow baan u naqaanaa de wiil yar oo wuxuu iska caato oo meelaha widwiidaayo haddana maanta waa oday marka hadalka si faan ugu dheeraynin aan taariikhooyinkii maxaan ka hadlayaa mudane mayor maxamed ismaaciil 2007kii markuu soo galay Kenya joogay anoo visit ku tagay martiyaan ku tagay marka taa waxa liigu yiri walaalahayga isku class aan waxay igu dheen wiilkan ba mayor wardaya katan mayor wuu riyoonaya markii wadankii waan ka soo tagay markaan imaado doorashadii ay dhacday waxaan maqlay wuu ku guuleystay marka ayadana cancel wuu dhalinyaro dhan baa xoogeysteen dhalinyaro dhaxda xirteen waxay dheen odayaha dhinaca nooga fariistaan mayorka aan wiil yar oo dhalinyaro aan soo gashano magaalada municipality Gaaris marka waa sidii hor loo sheegay waa ninka u yar wadanka Kenya dhan oo mayor ka noqdo waayo magacaas waa oday dhalinyaro ma ahan marka mudane odaynimadii wuu ka soo baxay oo dhalinyaronimadi wuu ka tilaabsaday wuxuu sameeyay wax badan buu noo dadaalay committee buu noqday district of social education ka mid ka dhigtay Gaaris waxay u horeysay numberka u sareeyay dadaalkiisa iyo firfircoonidiisa wuxuu ku qaatay hadana inuu noqdo chairman committee-ga dhexdeeda ah 2009kii wuxuu noqday deputy mayor dadaalkiisa wuu sii batay 2011kii waxaa loo doortay mayor Gaaris magaalada Gaaris
magaalada Garis waagi hore waxaan ahaan jirnay reer Gaariso laakiin hadda waxay noqotay the melting point oo Mareykan oo kale anybody waa soo degi karaa hal cid ma lahan waayo ani markaan ku soo koraaye darisayaashaydii hadda haddaan tago dad aan kasi ma ahan waa anada America way noqotay anybody waa degan maanta Mareykan I mean Garissa anybody waa ka qanacsanaya taasna waxaa keentay mayorka dadaalkiisa iyo dadka kale oo la shaqeynayo mayor Maxamed Mudane soo dhawaaw waana ku soo dhawnaa gacmo furan soo dhawaaw walaal شكرا وما سنتي ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا caawa aad baan u faraxsanahay anigoo si qaas ah marti baan ku ahay ma dhigi kari hooyadkayga ama gurigayga labaad joogo ehelkii iyo tolkii oo dhanna dhinacyaha iga fadhiyaan marka ma qiimeyn karo qiyaas yacni macnaha intaan hadda aan caawa halkan ku faraxsanahay arrinkaas asaga ah waxaa ii suurtageliyey walaalahay oo maaragtay halkan ay hogaaminayaan boqoriinteenii halka fadhiyaan odayaashii dhalinyaradii oo aqoon-yahankii kulli ku jiraan gabdhihii hooyooyinkii kulli halkan fadhiyaan marka dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan xamale waan presentation yar baan sameyn rabaa oon rabaa inaan waxyar niga tuso magaaladii raalli haada gabdhaha agtiina ay ka shidan tahay inaad eegtaan oo waxaa ila eegtaan baan aada u jeclaa kadibna waxaan rabaa inaan faahfaahin qaybtii iyo shaqadii iyo halkay noo maraysay iyo waxaan niga doonayno inaan maaragta aan nii sheego laakiin intaan taa samaynin inaan waxyar halkaan niga sheego Garissa County saad u aqaantiinba waxay ku taallaa gobolka oo Kenya ku taallaa waddanka Kenya khaasatan gobolka waqooyi bari populationkeeda ama dadka ciddadeeda halkan waxaa lagu tusayaa in maaragta 632 kun ay yihiin laakiin waxaa ka maqan halkaas taqriiban ilaa 500 kun oo maaragta qaxooti ah markan ka hadlo xagga maaragtay qaybaha maaragta tacliinta inta iskuulaadka aan ku leenahay primary-ga ama iskuullada hoose waa taqriiban 47 iskuullada secondary-ga ama saad u qaantaan dugsiyada sare 9 weeye hal jaamacad baan leenahay oo Garissa University oo hadda ayna kaalminayso Moi University hal medical college baan leenahay ama college-ka sida maaragtay caafimaadkii ku hole college-ka oo maaragtay ardayda macallimiinta ah u diyaarinayso ayana hal college baan leenahay xarunta maaragtay caafimaadka 32 xarun baan leenahay oo maaragtay kuwa caafimaadka ah isbitaalka weyn ee referral leh walaalkeen uu ka sheegay ilaa Iwamo oo dhan noo dhaxeeyay ilaa iyo Tana River gobolka waqooyi bari oo dhan ilaa iyo dhulkan ay kaambada deegaana la yiraahdo Mwingi hal isbitaal oo weyn oo referral hospital baan leenahay health centers waxaa weeye 4 clinic-yaha kuwa oo dowladda leedahay ilaa 6 nursing homes-ka waxaan leenahay 3 population-ka
takhtariinta halkii takhtar wuxuu maaragtay uu matalayaa oo macnaha uu kusoo hagaagaya 52,000 kun ay joogtoba hal takhtar baa ka dhexeeya marka waxay ku tusaysaa halka baahida aan maaragtay takhtariintii iyo u qabno waddanka sidii dhaqaale ahaantiisa ama macnaha lafdhabarka waa dad reemiyi waa dad maaragtay xoolo dhaqata ah inkastoo aan leenahay webiga dadka ay u aqaanaan ganana mara Tana River baa la yidhaha webigaasaan leenahay macnaha haddaan niga sheekay aan yara sharaxno structure-ga dowladda county capitalka ama macnaha saldhigga ama magaalo madaxda county-ga waa Garissa waxay leedahay 6 degmo oo macnaha laga soo doorto xildhibaanada kuwa galayaan macnaha baarlamaanka oo federaalka ah saad u garanaysa Balambala Dudges Town macnaha Garissa Town Ijara Fafi Dadaab Lagdera qolooyinka hadda House Congress dhahdaan walaalkeen uu asagana u tartamaya Kushin Richard macnaha anaga waxaan leenahay 33 macnaha meel oo laga soo doorto qolooyinka la yiraahdo House Representative challengeska nagu weynaa oo hadda aan la kulanay waxa uu nagu weynaa oo dhibaatada nagu weyneed ahayd يعني معناها قرحة أو كسو جدان قولين كا أن هؤلاء الدين كسوعنين ديجميرة تدا أن صومالي نمي الدين نبأ أن كسوعنين الشباب كليرا مرك قرحة أو هلك عن فلين نجا ما نهيان أيام ما أتنودرن أو هذا challenge كأوين هذا أنقبنا وكاس Soomaalidu waa iska garanaysaa meelaha ay isku imaadaan waxaa jira waxyar oo u dhaxeeyo annaga reer miyi baan ahay dad waxaan xoolo dhaqataa marka meelaha waraha biyaha laga cabo ama maaragtay waa la iskugu imaadaayo marka resource ama macnaha hantida aan leenahay mar waa isku qabsanaa waxootigii oo garanaysaan 1990kii laga soo bilaabay ilaa maanta oo taqriiban ciidadooda ilaa 500 kun ah ay nala joogaan oo walaalaheen ah oo aan hooy u fidin dadkeena reer miyiga waad garanaysaan cimiladii iyo waxyaalaha isbedelahayo dadkii waxaa weeye in badan miyigii bay kasoo tagayaan waxay imaanayaan magaaladii ayagoo markaa ay shaqo iyo howlo noocaas oo lamid ah maaragtay doonanayaan mas'uuladii ciyaalkooda rabaan inay geystaan marka ciidad fara badanna magaaladii oo Garissa saasay noogu imaadaan waxaa marka halkaa ka maqan challenge kale oo ugu weyn waxa weeye qolooyinka la yiraahdo private sector waa qolooyinka shakhsiyaadka ah oo maaragtay hanti abuurka ah qolooyinkaas anaga magaaladeena ma joogaan haday joogaanna way ku yar yihiin runtii kolley waxyaalaha hadda arrintaas anaa faafahin ka bixin doona laakiin waxa weeye sababta yeelaysana gogol xaar bay leeyihiin dadka iskama imaadaan waxay doonayaan inay helaan inay magaalada biyo leedahay inay sewage leedahay waa inay korontada weyneed oo biyaha laga dhaliyo maaragtay ay leedahay magaaladii marka inta markaad leedahay ayaa maaragtay qolooyinka private sector waad ogtihiin inaga hadda halka Mareykanka shaqooyinka dawladda ama maaragtay hay'adaha kaliya kama heshaan shaqada ugu weyn halkan waa shaqaysataan waan in muddan la joogay shaqooyinka waxa laga helaa qolooyinka maaragtay private sector-ga dawladda waxa way inay ku dadaasho oo ay siiso macnaha sababaha ay ku soo dhaweyn karto si maanta dadka ay ku soo maalgashadaan magaaladooda waxa kale oo dhibaato ka jirta aan ogaa planning-ka qaybta planning-ka iyadana dhibaato badan baa ka jirta magaalada in la plan gareeyo oo qaybaha maanta warshada qaybaha maanta deegaanka oo high density low density qaybaha maanta kala duwan oo nidaamsan in loo yeelo oo meelaha paaga lagu nisan iyo howlo noocaas ay soo socotaa saad ogtihiin iyadana xagga maanta isgaarsiinta infrastructure-ga naftiis aad buu wax ma gobolka waad ogtihiin waa gobol NFD oo soo maray dhibaatooyin fara badan waxaa marka iska jirta in badan magaalooyinkan ama macnaha dawladahan maaragtay reer galbeedka in badan ay maaragtay diraan allaat wax la yidhaaho oo ay u baaqayaan hay-adahooda
iyo dadkooda inay maaragtay meelaha ammaanka uu ku xun yahay inay tegin taa iyada nafteed marka waxay noo keenay in maaragtay magaaladii waxyaalaha maaragtay hay-adaha ama dadka ta soo maalgashanaha inay maaragtay ay isticmaalin haddaba inaad ila egtaan baan doonaya insha allah Garissa waxay maaragtay waxyaalaha ay opportunity-ga ama maaragtay muhiim ama fursadooyinka ay nii hayso ama aad ka faa'iidaysan kartaan maxay tahay waad ogtihiin dadka waa reemay dadka waxaa weeye xoolo dhaqato weeye marka xoolo dhaqatada annaga xoolahan leenahay xoolaha ayagana sida aan maaragtay u leenahay ooma fadhiisano xoolaha weliba aan leenahay suuqa ugu weyn baa ku yaala Garis Garis kelina kama helno xoolaha ayaga ama looda ama geela waxay ka amaada ay ka soo ay suuqa halka ka soo aadaan dhulka walaalkeen uu ka sheekeeyay ilaa Wamo jubooyinka ilaa hadda Soomaaliya oo dhan ba hadda suuq weyn Garis baa maanta suuq u ah marka ma lihin warshada dadkii xoolaha iska lahaa kama faa'iidaystaan dadkii xoolihii bay la soo safrinayo in muddo dheer bay soo soconayaan la soo socodsani suuqi baa la keeni kadibna dad baa ka faa'iidaystaa xoolihii ayaga iska raran xoolihii marka in badan gaarigay ku dhex dhintaan ama macnaha meeshii la markii la gaarsiiyo xoolihii waxaa waye miisaan baa la saari oo loo marka aan garanayn gaari iyo waxa la saaro waxaa maanta dhumahayaa miisaankii baa ka yaraanhaya marka qofkii waxaa waa loo miisaamay lacag yar baa laga siin qofkii marka iyadoo loodii uu qaadani uu qali kadibna maaragtay waxyaalaha la yidhaha by products South Africa markaan joogay waxaa lagu yidhi faa'iidada lagama helo hilibka maaragtay keli laakiin meesha ugu faa'iido badan qolo Karen beef la yidhaha South Africa aan ku booqday aan booqasho ku tagay hadda intii meerkaan ahaa waxaa lagu yidhi faa'iido lagama helo faa'iidada meesha ku jirto waxaa weeye qoobka maaragtay looda sida geesaheeda uusko biogas waxyaalaha mid laga hagaajiyo marka waxyaalahaas maaragtay faa'iido badan ku jirta marka faa'iidadeeda anaga kama helno so marka waxaan doonaynaa halkaas in maaragtay aan ka dhisno warshadooyin oo maaragtay hilibka oo warshad laga hagaajiyo oo maaragtay xoolaha lagu qalo shaqo abuur ay noo samayso dadkiina maaragtay ay xoolahoodii ay qiimahoodii ay maaragtay lacagtii laga rabay ay ka helaan waxaa marka jirta iyadana saad ogsoontihiin waddo ka soo bixi doonto maaragtay Lamu oo isku xiri doonto Lamu Sudan iyo Ethiopia marka taa iyada nafteed waxaa weeye waa fursad aan doonayno dadka inay iyagana ka faa'iidaystaan waxaa marka in badan aan anagana saaxiibo la nahay wadamada maaragtay carabta iyo wadamo fara badan baa maaragtay fursad la samayn karnaa la xiriir la samayn karnaa oo la shaqayn karnaa si maaragtay aan magaaladii aan u horumarino xagga maaragtay beeraha haddaan eegno webi baa halkaa maraa oona ka faa'iidaysana biyaha waxay ka soo baxaan highlandska ama macnaha Mount Kenya ay maaragtay biyihii iyada maaragtay webiga ka keenaa biyahaas ay u socdaanna badda maaragtay Indian Ocean ay ku shubtaa marka biyaha iyaga ama webiga kama faa'iidaysano sidii la doonayo marka in laga faa'iidaysto oo annaga aan wax beerano awalan countiga isku filnaato oo dadkii noloshii hoos maaragtay aan la dejiyo oo dhaqaalihii dadka countiya kale nooga amaadaan hadda sidii raashinka iyo wax la mid ah marka inaan wax beerano oo countiga aan ku deeqno kadibna aan countiyalka kale aan u dhoofino iyo maaragtay waddanka dibaddiisa taas iyo nafteed waxaa weeye waa fursad aan doonayno in countiga ay ka faa'iidaysato nin walba oo Soomaaliya oo maaragtay maalgashan karana inuu halka iyada ka fikiro sidii aan magaalada iyada aan ku maalgashanayn يعني حاجة حلقتها وان كان لي إني ما تكينسو لامو إلا ما تلامو السودان إثيوبيا جوبا إن أسكو حرنا حيل جوبا نفتح حاوي دكسونتين إلا تكدك اسمايو وحاوي وحيلا ما تنكيل كرنا هرمر أو ما أو مهم زايدة مركا وحاوي فرصتها وفرصة قالة وهذا مجالدي أنكيل كرنا مجالدنا أن هنتو أو أبور كرنا dhaqaalaheeda kor u soo qaadi karno dadkina shaqo u abuuri karno haddaba maaragtay si fiican uma aragtaan laakiin waxaa weeye Garissa municipal hadda saldhigga ama countiga headquarterdeeda dhulka aan haysano 147 square kilometer bay ka kooban tahay marka si fiican uma aragtaan laakiin waxaa weeye saddex qayb aan u kala qaadnay qaybta u hore arkaysaan waa Garissa hadda siday tahay deegaanka Garissa hadda siday u deegan tahay si fiican uma aragtaan laakiin qaybta guudana arkaysaan calaamadda waa Garissa hadda siday tahay macnaha deegaanka meesha ku egyahay waa dhow waxaan sameynay wadabaan marinay
oon ku xiraynay maxaa yeelay magaaladii 1990kii waagii la soo qaxay iyo anagana abaaro badan baan saameeyeen dadka marka waxay soo galeen magaalada marka developmentkeeda ama horumarkii iyo magaalada miisaankeeda dawladda hoose way la socdeen laakiin waaga ayada ma ata dad xadaaf ah waxay dawladda idil baa soo burburtay walaalaheen meel kale ay tagi kareen ay maatay ay ku dagi kareen ma jirin anaga marka waxaan noqonay inaan maatay hoy u fidino marka dad badan baa maatay ciidadii soo galay anagana abaaro badan baan saameeyay waqtiga ayada marka hay'ado waxaa jireen samafal ah sida maatay alxarameyn marka alxarameyn way shaqeynaysay magaalada waxay dhahdaa anna maadaama ammaanka uu xun yahay magaalada soo gala waagaas marka aan nagu bilaabatay in dadkii ay magaalada soo galaan oo iska soo degaan oo laga sameeyo maanta degmooyin fara badan oo maanta la iska degahay marka dhul balance garaysnaa oo diyaar ahaa oo dadkii loo qaybiyay bay dadka iska degeen kadibna dadkii meesha waa laga kicin waayey magaaladii marka siday u fiday dadkii haddii warshado ay ka shaqeeyaan ma leheen marka plankan magaalada Garissa meeshay horta hormuud u ahayd ay magaalada ay ku halawday plankeedii halkaas ahayd marka anagana waan soo dhaweynay dadkii waa ilaa haddana way iska degan yihiin magaalada marka inta hadda aad arkayso calaamad aan ku joojinay waa inta hadda la degan yahay inna way plan garaysan tahay inna ma plan garaysno dadkii way iska degeen inagana dadkii markay iska degeen shaqooyin ma haysanin ilmi iskuul bay geysteen wax kaloo hanti warshad ma laha ay ka shaqeynayaan marka dhulkii inay iska ootaan oo si xadaaf ah oo dhulkii oo plan garaysneen iska ootaan bay maartay noqotay marka dhulkii markay iska ooteen intay suuq heleen way suuq waxaad siisay inaga siiseen dadkiinan reer qurbooyinka waxaa weeye magaalada hadda waad u baahantiin inaad degtaan baad u baahantiin laakiin waxaa weeye hab baad ku degantiin meesha nidaam baad ku degantiin address baad leedihiin wadooyinkii baad leedihiin oo qofka wuxuu ku leeyahay meel fulaan baan joogaa waan dayday ma jirto qofkii address buu kusoo tuuri addresska asaga ahaaba yaad gashanaysaa googolka xaafadda iyadeed buu geynay adigoo nidaamkan baad ku nooshahay oo maaragtay wanaaggan iyo macaankan baad ku nooshahay maxaad ugu diiday magaaladaadii Garissa oo soo martay oo haddaba degan tahay in nidaam loo yeelo maxaad ku diiday marka dhibaatooyinka faraha badan ee aniga magaaladayda saameeyeen kala badi inaga inta badan maaragtay eedda inaga askale waayo dadkii baa dollar tusteen dad oo maaragtay iska degan oo anaga aan leenahay war nidaam iyo habba magaalada way meesha anaga waad ogsoontihiin dad reemiyi baan nahay reemiyigiina ma garanayo maamulka magaalada lagu dego qofka waa qof iska guuri meel buu degi biyihii wuxuu raadsanayay maaragtay baad buu raadsanay xoolihii biyihii iyo baadkii markay dhammaadaan wuu guuri ninka reewaama si fiican ugu sheegi doonaa laakiin magaalo la iska degnaado hadda magaaladan imise sana la degan yahay ma cid ka guuri baa jirta waxaan maqli jiray cidda marka magaalada meel la dego oo cidda ay degto waxaa maqli jiray ciddi way degaday ka gedisanayso saameen ya marka Garissa ama hadda meesha aad degantihiin meel hadda looga gedisanay ma arkaysaan ma jira marka magaalada maadaama aad degan tahay nidaamkeeda waa inaad lahaato meel looga guuri mala magaalo marka waa inaad ogaato qashinka adiga ka soo baxayo waa inaad meel u yeesho waddo ku soo galayso sidii gurba degdeg loo baahan yahay service line-kii oo biyihii iyo sewage-kii waa inaad lahaato laakiin magaaladii oo iska nidaamsaneen oo wadooyinkii lahayn oo dhulkii meel iska duuriyay inaga sababteen inaad maaragtay dadka ayaga lacag siisaan kadibna la iska iibsado inaga hadda intiina waan ogay baloodya ku leedin Garissa waad iibsateen laakiin aniga meerka hadaan ahay haddana waan ka naxaayo markaan aniga horaan waxaan u maleynayaa meelahan dibadda markaad joogtaan inaad lacaga bilaash iska haysataan oo maaragtay wax dib u iska jirinoo wax qabobani soo galo marka waxaan arkay halkan dadka yaacaya oo ordahaya oo marka lacagta iyada dadaalka ku samaysteen baan runtii aan aad uga naxsan yahay maxaa marka rabaa guriyihii aad ka dhisateen ama baloodii aad qabsateen ma duminayo nigama duminayo nigalamana qaadayo waan ogay dhibaatadaad ku keenteen laakiin waan wanaajinaynaa deer weyn baad odateenoo ood maaragtay ku xirteen gidaar ku xirteen waan riiqayaa qoosay wadooyin baan nii samaynayaa wadooyin aad ku gashaan baloodihii baad yaa nii samayni si ay inaga naftiin aad maaragtay ood dhulkii aad odateen ama aad gadateen aad u istiraexdaan ood nolosha halka aad ku noolashiin nolol lamid aad Garissa oga heshaan waa xagga security-ga magaaladaas macaan oo aad ogtihiin inaga ciyaalkiina wala joogaan Soomaali oo dhan waliba loo kala ahayn haddana aad bay ugu xun tahay in magaaladaas qarax iyo waxyaalo macno darray ah oo aad oo la yaabanahay in maaragtay magaalada maaragtay qarax iyo waxyaalo noocaas dadka sameynayana meel kale kama amaanayo waa anaga dhaxdeen
haddaad leedihiin ciidamo Kenya baa galeen Soomaaliya ciidamo fara badan oo maanta ajnabi baa galeen wali ugu horreeyeen maxaan u arkay la'aan qarax ka dhaco Ethiopia qarax ka dhaco Ethiopia iyo Burundi iyo Rwanda iyo maxaan u arkay la'aan maxay ku dhacday halkii naaskii nuujinay inaad habeenii dhaarba midilada taagantiin rabtiin anaga goysaan waxaan niga reebayna maxaa way Soomaaliya ninba wuxuu yiri maxaad laacdo laacay macaanaad rabtaa inaad magaalada ku bedelato marka inigi baa hadda magaaladii inii aan igu soo dhaweynay oo magaaladiina ah hantidiina taalo ciyaalkiini ba hadda joogaan runtii aniga waan ila yaabanahay aad baan ila yaabanahay marka waxaan u dirayaa Soomaalida oo dhan magaalada iyada waa hasha kaliya hadda nagu soo hartay ammaanka war magaaladaas badbaadiya hadiina badbaadin way aad waysaan Soomaha Nairobi ma degnaanaysaan Kenya na waa ma degnaanaysaan hadii dhibaato inay isku keentay ma noqon doontaa intay goor ahayn war magaalada badbaadiya waad ogsoontiin dadka markaa sameynaya dhibaatada meel kale kama socdaan waa anaga dhaxdeen magaalada aan badbaadino ilmihii ciyaalkii iyo makasti iyo hantideena dhan baa taala taa markaa waa baaq aan Soomaaliya u diray mid labaad waad ogtiin dawladda Soomaaliya anaga nafteen qayb badan baan ka qaadanay hadii hadba meel bay soo mareysay hadda markii u dambeysay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la doortay si waliba haddana dimuqraasiya oo macnaha xamar dhaxdeeda in maatay doorasho ka dhacdo noocaas oo haddana iyadoo dhibaato ka dhicin maatay xilkii isku wareejiyo marka awalan waxaan leeyahay soo dhawow waan u hambaleynayaa midda labaad aad baan uga xumahay aniga waxaan islahaa maadaama aad tahay meerkii oo maatay qaxootigii iyo ummadda Soomaaliyeed aad gogol u fidisay Sheekh Xasan waxaan Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filayay booqashada u hore uu ka soo baxo xamar inuu maatay ku soo degayo Garis oo kadibna duqa magaalada halka uu kula kulmaayo kadibna aan aadayno xeereenka qaxootiga oo dadkii dhibaatooyinkii ay saameeyeen uu u tagayo maxaa yeelay inta ogaantay wax madaxweyne oo nagu imaaday magaalada malaha marka arrinkaas isagana waa baaq weyn aan dirahayo